maxaa keena in maalmaha qaar uu waqtiga uu kula gaabto maalmaha qaarina uu waqtiga kula dheeraado midaas waxaa keenta waa without a daily routine adigoo aan lahayn daily routine. Daily habits are routine life. Daily routines. Millions of morning routine videos online. marka daily routine aad leedahay waxaad awood u leedahay in maalintii aad boqolaashii aad qabato in maalintii yani aad wax baran karto yani shaqeyn karto jimka geli karto asxaabtaada waqti la qaadan karto yani boqolaashii aad qaban kartaa. sidoo kale increase your productivity wax soo saarkaaga badanaya waxaad lahaanaysaa self discipline qof maalin yani hawshiisa ku socda maalin yani hawshiisa uusan ku soconin isku dhaxaysan ma noqonaysid marka daily routine aad leedahay faa'iidooyinka ay leedahay inaad daily routine lahaato waxaa kale oo ka mid ah inaad consistency aad lahaatid okay in maalin walba consistency ku ahaatid yani long term goals hadafyada loo yaqaano 6 months 1 year 2 year aad u qorshaysay inaad consistency aad ku ahaatid ay ku fududaynaysaa okay yani mar walba waxu sii dhaweynaysaa riyeenta rumaynta riyadaas. marka halkan waxaa kula wadaagi doonaa laba qodob kuma dhahay yani subaxdii soo kac 10 saac subaxdii soo kac 21 saac soo kac qabeyso ka hay'adayso kuma dhahay qaybiya kuma dhahay laakiin laba qodob baa kugu soo koobaya. qodobka koowaad waxa weeyaan rulka loo yaqaano waxaad isticmaalaysaa rulka loo yaqaano 8+8+8 maalinta dhan waxay ku kooban tahay 24 saacadood 24 saacadood ayaad waxa ku dhigaysaa saddex qaybood 8+8+8 halkan waxaa ku haystaa 24 waxaa ka soo qaadaysa uu ku leeyahay 8 ugu horeysa ka soo qaad inaad hurdo qaadatay yani hurdo caafimaad inaad u qaadatay ka soo qaad waa ku soo horay 8 labaad waxaa ku qaadanaysaa uu ku leeyahay yani ka soo qaad inaad shaqeynayso ayaaba inaad shaqeynaynin adiga garanaysid sidaas waxa ku buuxinay hadaa wax baranaysid oo barasho jaamadeed ama barasho kale aad baranaysid sabti okay halka waxa ku soo haray 8 marka waxa loo baahan yahay 8 dan inaan u kala qaybino ilaa 3 qaybood 3F 3S 3H okay 3F waxaad u qaadanaysaa uu ku leeyahay 3 saacadood yani family friends and faith asxaabtaada iyo familkaaga iyo yani inaad yani ilaahay aad barisid yani ka soo qaad buu ku leeyahay 3 saacadood inaad waqti aad u qaadatay. sidoo kale rulkan wuxuu ku leeyahay 3 saacadood kale inaad ku qaadanaysaa waxa aad hobby ku tahay yani maxaad jeceshahay inaad ku badiyartid miyaa inaad jimka aad gashid miyaa maxaad jeceshahay yani hugaadu buu ku leeyahay wax caafimaadkaada hobby aad ku tahay qayb qaadanaya ku qaado. maxaa ku soo horay 3 kale ayaa ku soo hortay oo 3 saacadood ah 3 saacadood kale iyadana waxaa ku qaadanaysaa naftaada waqti la qaado okay businesskaada horumarinta businesskaada yani inaad skillskaada aad horumaraysid intaa ku qaado yani waxyaabaha naftaada specialka u ah ayaa loo baahan yahay 3 saacadood inaad ku bixisid waa the best time management aad isticmaashid. runtii halkaa waxaa kaga soo baxaya waqtiyo fara badan oo aad luminaysay yani inaad ka faa'iidaysto in waqtiga kula bato okay rulkan runtii aniga shakhsiyan aad buu anfacay waxaan rajeynaya adiguna inuu ku anfici doono. qodobka labaad asagana waxa weeyaan wax walba sida naturalka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu abuuray oo isticmaal yani sida hore aan kuu sheegay kuma dhahay 21 saac soo kac 10 saac soo kac yani subaxdii intaas markaa soo kac sidaan samee kuma dhahay laakiin habeenkii inaad xilli hore aad seexatid habeenkii inaad seexatid maalintiina aad soo jeedid waa wax ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nafarayo wajacalna nawmakum subata wajacalna al-layla libasa wajacalna an-nahara macasha miyaan hurdadu raaxa idinka dhigin miyaanan habeenkii asturaal idinka dhigin miyaanan maalinkii waqti shaqo idinka dhigin. marka ka waran haddaad habeenkii aadan seexanin subaxdii maxaa soo kacaysaa inaad hurdada ka soo dahdid iyo inaad ku dahdidba labadaba waa khasaaro inaad hurdada ku dahdid waa khasaaro sababtoo marka hurdada ku soo dahdid cajis baad dareemaysaa markaad hurdo fiican aad seexaninna dee waxaad la soo kacaysaa cajis sidoo kale. mar walba waxaa wanaagsan inaad habeenkii waqti hore aad iska seexatid aad midaas inaad la qabsatid haddaadan xitaa hore aadan ula haysanin inaad la qabsatid aad isku dayid wax walba oo lagu celiiriya waa la qabsadaa okay inaad sidoo kale nadaafadaada aad ku dadaashid inaad maxaa la yiraahdaa cuntada aad cunaysid
يعني cunto caafimaad leh aad cuntid yani waxaas dhan waxay ka qayb qaadanayaan yani inaad daily routine lahaato gaaladan ku dhahaya yani subaxdii markaa soo koobco biyo badan baa cabaa waxaas dhan waxaa kaa wanaagsan inaad si natural aad u noolaatid inaad subaxdii waqti hore aad soo kacdid dee diinteena ayaa ina faraysaa inaad salaada subax aynu tukano salaad subax meesha lagu toddobaadba dee waa maalin marka waxa wanaagsan qofku inuu si natural ahi u noolaado siduu ilaahay subxaanahu watacaala inoo sheegay inuu u noolaado daily routine waxaa inaga filan sida rasuulkeena suubanaheena nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam siduu yani daily routinekiisu ahaa inaynu daily routine ka dhigano ayaa mar walba wanaagsan marka saaxiibayaal halkan baan kusoo koobayaa waxaan filayaa inaad labadan qodob wax badan aad ka faa'iiday intaan muuqaalka dambe aynu ku kulmi doono nabadgeno